maalin wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnaa waa markaan wararkii warbixinada ugu xiisaha xamaasada badnaa adaan oo kale islaamiga ka daawo jirtay waxa kamid ah ra'iisul wasaare Kale oo si degdeg uga hadlay doorashadii uu ku guuleystay diini kadib guushii Saciid diini filla Somalia oo wafdi wasiiraha u dirtay Garowe xaalada Gaas oo qolqal ku jirta madaxweynaha dawladda Somalia oo telefoon kula hadlay madaxweynaha cusub ee Puntland balantiina la galay qodobadaas iyo qodobo kale idin qarinaya barnaamijkeena ku daawo doontaan haduu beedmo sida muuqata durbo waxa la dareemayaa in madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi diini uu qaatay falsafada ay ku shaqeeyaan dawladda dhexe ee Somalia wuxuu hoggaansamay qorshaha ah in dawlad wanaag iyo wada shaqeyn ay dawladda dhexe ay tahay muqadas isla markaana ay muhiim u tahay kala xadiisanka awoodda dalka Saciid diini ayaa taageero badan lagu muujiyay baraha bulshada oo ay siiyeen taageerada kooxda nabad iyo nolol ee xukunka dalka hadda ku fadhiya warar laga helay ayaa sheegaya in telefoonka ay ku waceen madaxda dalka hogaamisa madaxweynaha cusub ee Puntland maanta oo la doortay Saciid Cabdullaahi diini waxay uga hambalyeeyeen guushiisii una rajeynayay in alle uu astro xilka uu qaaday oo ah mid culus dadka reer Puntlandna ay ku baraarujiyeen in si cadaalada uu hogaamiyo Saciid diini ayaa loo xagleynayay xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud balse waxa hadda la dareemayaa in nabad iyo nolol uu ku biiray si horumarka Puntland ugu horseedo waxa uu la saaxiibay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Madax Xasan Kale ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi diini waxaan u hambalyanayaa madaxweynaha la doortay ee dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi diini waxaan alle ugu baryayaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda la idmaday Madax Xasan Kale ayaa shacabka iyo mas'uuliyiinta Puntland ugu baaqay in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi diini shacabka iyo mas'uuliyiinta Puntland waxaan ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan madaxweyne Saciid wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla Cismaan aadan cad ee magaalada Muqdisho waxayna ku sii jeedaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland wafdiga dawladda federaalka ah ee ku wajahan Garowe wafdigani waxa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad Libaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland mas'uuliyiinta safarkooda ayaa ku soo aadaya kadib markii uu doorashada ku guuldareystay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu warqad uu horay u soo qoray ku mamnuucay in xubnaha dawladda federaalka ah ayna tagi karin magaalada Garowe Gaas ayaa dawladda federaalka ah horay u eedeeyay in ay fargelin ku sameysay doorashada deegaanada maamulada